السلام عليكم dhalinyaro soo dhawaada oo Maxamuud casharkan waxaynu ku qaadanay 10 kaas ee meesha noo saaran ereyga koowaad waa spectrum waxaa la yiraahdaa wax aad u baaxad weyn ama aad u mug weyn tusaale fikradahan aad bay u baaxad weyn yihiin aqoontiis aad bay u baaxad mug weyn tahay dhamaantoodba spectrum the teacher explained a spectrum of ideas macallinku wuxuu inoo sharxay fikrada aad u baaxad weyn ama hadii kale There was a wide spectrum of opinions on the topic. waxaa jiray fikrado aad u baaxad weyn ama ideas aad u baaxad weyn oo mowduuca ku saabsan. Marka spectrum waa range ama a wide range wax aad u baaxad weyn. Ereyga labaad speculation waa tuhun, yani wax in la tuhmo ama waxaan xaqiiq loo haynin iska dhaho ayaa la yiraahdaa speculation. Xaqiiqo waxaa la yiraahdaa fact. Okay? For example, we should avoid speculation without evidence. When we iskadafna tuhumkan aanan cadaynta u haynin. Yes. There is a lot of speculation about her health. Tuhun aad u fara badan baa ka jiro caafimaadkeeda. Yani waa waxaan la hubin laakiin la iskaga maleynayo un. Yes. Splendid waa wax aad u qurux badan. Wax waliba markay aad si aad u qurux badan yihiin baa la yiraahdaa splendid. For example, your performance was truly splendid. Yani soo bandhigidaada aad ay u qurux badnayd. It was very beautiful or it was very excellent. labada waa dhigi kartaa. Ereyga afraad spring laba micno uu leeyahay. Micnaha koowaad waa xilliyada kamid ah. Waa afarta xilli oo sanadka ah. Tusaale xilliyada barafka winter, xilliyada kuleelka summer, xilliyada roobaadka fallka. Springna waxa ay xilliyada maxay ahayd la yiraahdo guga la yiraahdo af Soomaali. Marka waa xilliyadaas kamid ah. Afarta xilli ee sanadka xilli kamid ayaa la yiraahdaa spring waxa kale la yiraahdaa يعني leap أما jump بوديتان. Yes. The cat sprang waa past tense geedi on the table. يعني يرتو حكو بودي ميسك بوديتان كاس أو دق قف حال مرنو بودو أما وحال مرنو بودان تاسم حالي هذا spring. Yes past tense geedi نحن نقول sprang. ما دام الفعل تهاي بحال هذا past tense. هدي حلية كم داو استعمالي سنة و noun. The noun كان مالها وحل صودا في وح مركا جو noun ومركا وح جوجون. Staggering waa wax aad la yaabto. Very surprising. Yes, wax ku cajiib geliya. Yes, he made a staggering discovery. يعني wuxuu sameeyay discovery cajiiba. Yes. Ama hadii kale staggering waxaa dhigi kartaa shocking, wax ka yaabiyo. For example, qiimaha waa ka yaabiyan. This is very shocking. The price is staggering or the price is shocking. Staircase waa jaranjaro. Jaranjarada caadiga ahayd ayaa la yiraahdaa staircase. Jaranjarooyinku waa labo. mid guriga ku dhex taala oo dabaq haduu yahay ama qofna wiish ku raaca qofna jaranjarada fuulaa. Jaranjarada guriga ku dhex taala waxa la yiraahdaa staircase. Jaranjaro kale waxaa jirto guriyaha lagu fuulo. oo tusaale guriga markaad wax soo degsanaysid ama meel fog aad laacaysid ama guriga xitaa la dhisaayo taas English waxa lagu yiraahdaa ladder. mid kalena staircase lagu yiraahdaa ama stairs labadaas ku mid. Yes. Stale waxa way opposite ka fresh. For example, cuntadan hadii markaas ay beerta ka soo gooday ama markaas la kariyay waxaan leenahay cuntadan waa fresh. Hadii cunto qurmuunto halawday oo cabaar taale ay tahayna waxaan leenahay cuntadan waa stale. Marka waa opposite keedu waa fresh. Yes. For example, this bread is fresh. Roodigan waa fresh waa. Opposite kiisa this bread is stale. Roodigan fresh maaha. Stamina waxa la yiraahdaa xoog awood. Yes. Running requires a lot of stamina. Ina orad wuxuu u baahan tahay awood iyo xoog fara badan iyo waliba if you can stay for a long time. Endurance waa dhigi kartaa. Endurance aydan waxa qofka inuu daaho haduu orday uu sandaalin yani qofka inuu sandaalin la yiraahdaa stamina. Yes. Status qofka waxa waayo yani dabaqadiis. Yes. He has a high status in society. dabaqa sare uu ka jooga bulshada. dabaqadii qofka levelku bulshada ka joogo positionku bulshada ka joogo waa isticmaali kartaa. Status waxa kale oo isticmaali kartaa xaalad. Yes, xaalad aydan status oo isticmaali kartaa. Situation amal. Yes. ama condition labadaba. Marka status waa dabaqada qofku bulshada ka joogo ama xaalad oo markaas jirtan waa isticmaali kartaa. Yes. Ereyga tobanaad steep waxa la yiraahdaa loo macno way leedahay. buurta iyo dhulka marka laga hadlaayo dhulna waa dhul siman, dhulna waa dhul hoobad ah. hoobadka yani meel aad ka soo taraarixi kartid baa la yiraahdaa Soomaali. English waxa lagu yiraahdaa steep. Yes. For example, the hill is very steep. Yani buurtan ma simno waa hoobad. qofkan inuu ka soo dhaca fudud ama uu ku soo taqaanto oo degdeg uu soo ordo yeeso ku soo dhaco. Steep qaabkaas oo loo isticmaali karaa. Steep waxa kale oo isticmaali kartaa markii lacagaha la joogo. Yani waxaan waa excessive ama lacagtan aad u fara badan tahay. Yani ama qiimahan waa zaid marka leedahay
أيضا steep واستعمالي كرتا. For example, the prices are too steep for me. يعني قيمهن آد بو excessive إيجوية أما آد بو expensive إيجوية. 10 كنت سيوكي جاي. Thank you for listening and have a